war degdega dhacda naxdinna ayaa ka dhacday Walaweyn saraakiisha amniga iyo dadka deegaankana ay noo xaqiijiyeen nin ayaa xaaskiisana u jeedaan gabadhan oo ay kala tageen laakiin laguna magacaabo Zainab Hussein Jis ayaa la sheegay inay ahayd haweeney uu horay u qabay ninkan dilaaga hadda noqon doona oo xaaskiisa nafta dhaafiyay ninkan waxaa la sheegay in uu gabadhan isaga horay ay isku qabeen oo ilmaha 4 caruur u dhashay inuu qori AK47 inta soo qaatay kadibna gabadha halkaas kula dhacay xabado waxaa la sheegay xilliga falka uu dhacayay in gabadha ay guriga dhex joogtay isla markaana ay haysay caruurtiisa balse ninkan uu go'aansaday isagoo wali markaa la sheegay inuu afka soo xirtay inuu xaaskiisii hore dilo sabab kasta ha ku kaliftay kadib waxa uu isku dayay falka kadib inuu ka baxsado goobta waa uu cararay laakiin waxa toogtay oo isaga oo fogaan dheer tagin ba ciidanka booliiska maadaama ninka uu hubaysnaa nabadna aan la gali karin isla saaseen dhaxmartay ayuuna ku geeriyooday meedka xaaskiisii hore iyo isagaba hal meel ayaa loo wada qaaday waxaase runtii arrintan ay abuurtay cabsi aad u weyn oo dadka Walaweyn ku nool soo wajahday oo ay ku muujinayaan in weligood aanay arkin dhacdo noocan oo kale u qaabdaran waxay sheegeen in xilligan la joogo kala shaki weyn u imaan karo xagga qoysaska wada nool maadaama ay sheegeen in dhacdo noocan oo kale suuragal aysan hore u ahaan jirin deegaanada dadka reer Walaweyn ay degan yihiin booliiska oo aan la xiriirno waxay noo sheegeen inaanay faahfaahin hadda ka bixin karin balse goobjoogayaasha aan la hadalno waxay noo xaqiijiyeen ninka oo wajiga duubtay cimaamad wax ay ku soo xirtay inuu gabadhan oo guriga iska joogto u soo galay asagoo qori wata kadibna meesha ku dilay ilmaha ayay wariyeen ka qaad inay guriga la joogeen 4 caruur ay u dhashay gabadha qoyskeeda qaar oo nala hadlay waxay noo sheegeen in gabadha iyo ninka horay khilaaf uu u jiray taasoo sababtay inay kala tagaan laakiin kala tagoodii kadib gabadha wax mustaqbal kala ah maysan samaysan macnaha lama guursanin hatta haddii loo sababeyn lahaa falkan dhacay wuxuu daba joogaa ninkan hinaaso uu ka qaaday gabadha oo nin kale guursatay waxa la xaqiijiyay inaanay nin guursan gabadha balse qaatilka ayaa wixii laga ogaan lahaa dhankiisa ay halkaa kusoo afjarmeen markii falka uu geystay kadib maadaama isagina la dilay booliisku waxay kaloo sheegeen kiiska in loo soo gudbin doono magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan waaxda dambi baarista ama laanta dambi baarista ee dalka CID la yiraahdo si bal arintan diiwaan dheer looga sameeyo laakiin labada marxuum ee ifka ka tagay waa dilaaga oo markii dambe la dili doono iyo gabadha miskiinta ahayd oo lagu gardaroodayba ilmihii ay isku dhaleen waxay soo taagan yihiin magac la 4 caruur hooyana ma haystaan aabana ma haystaan aabahood wuxuu dilay hooyadood halka aabahood oo isdifaacayana ciidanka booliiska ay toogteen arrimaha noocan oo kale ah runtii ama nin qori u qaat xaaskiisa dilo afka kuma badnayn bariyahan dambe waxaa badnaa falalka kaleeto ee dhaca oo ah in naagtiisa uu gubo ama midi waxyaabaha isku adeegsadaan oo sida ay nafta uga qaadaan laakiin hadda xabad bas ayay maraysaa afadiisii hore ninkan oo sababta uu u dilay aysan caddayn ilaa hadda marka laga soo tago khilaafkii hore u jiray ay kala tagooda keen adiga maxaa is leedahay waa ay sababsatay gabadha marka gabadhan Zainab la yiraahdo ee walaasheen ah ee nafta la dhaafiyay ninkeediina oo hore u qabi jirayna isagana lagu hortoogtay isaga oo isku dayaya inuu balbaxsado falka kadib waxa ay hadda abuurtay arintaas hadalhayn aad u badan waase markii ugu horeysay oo qaatil fal geystay sidan oo kale ah isla ninkii falka geystay uusan weli ka badbaadin gacanta laamaha amniga oo isla goobtaba lagu khaarijiyay isaga marka hore waxay ahaan jirtay qofka in la qabto lagu qabto kiiskiisa iska daba dheeraado la sameeyo ama loo furo wado hadhow wax haltamo oo dhaqameedyo iyo balaayo ay soo farageliyaan balse kiiskan ka waa ka duwan yahay dilaagii asagoo si cararaya ayaa la toogtay inkasta oo saraakiisha booliisku ay noo sheegeen ee Walaweyn inuu ahaa ninka nin hubaysan oo qori watay xabadana riday taasna ay keentay in asna la xabadeeyo ilaa qof xabad kugu soo tuuray ma jirto sabab aad adiga inta gacmaha ugu laabtaa dheedo ku qabana aditaadu galaafana marxuumada hadda 4 caruur hay ifku uga tagtay caruurtaana waxa ku dhacay runtii dhibaato aad u weyn oo ah in hooyada adduunka aysan ugu harin aabana uusan ugu harin waxaase ka sii xanuun badan marka ay ogaadaan in aabahood uu yahay dilaagii hooyadood dilay taasoo runtii iyadana ah arrin kale oo aad u ku taalo ku reebi doonta caruurtaas
haddaanay helin ama meesha ay joogaan laga soo wadinna weligood ay noqon doonto dhibaato ay la noolaadaan noloshooda dambana saamaysa. dadka walaweyn waxay sheegeen in gabadhan si kasta oo ay dhacdaba ay mudan tahay cadaalad inay hesho, taasoo isweydiin kala dhalisay oo ah yaa cadaalad laga helaa maadaama dilaagiiba la dilay, qoyska ninkan la dilay isagana ee booliiska gacantiisa ku baxay ee laakiin gabadha dilay diya ma bixin doonaan, maxaa la samayn doonaa? arrintaas ayaa iyaduna dilo bilaabatay. booliisku wuxuu sheegay marka kiiskan inuu u baahan yahay in loo gudbiyo laanta dambi baarista dalka ee CID-da, nidaamka cadaaladdan ay usii gudbiso, halkaas oo labada reer ee kan gabadha iyo kan ninka ay ku wada hadli karaan. xabado waxaa la sheegay xilliga falka uu dhacayay in gabadha ay guriga dhex joogtay islamarkaana ay haysay caruurtiisa, balse ninkan uu go'aansaday isagoo weliba markaa la sheegay in afka soo xirtay inuu xaaskiisii hore dilo, sabab kastaba ha ku kaliftay. kadib waxa uu isku dayay falka kadib inuu ka baxsado goobta, waa uu cararay, laakiin waxaa toogtay oo isaga oo fogaan dheera taginba ciidanka booliiska, maadaama ninka uu hubaysnaa nabadna aanan la geli karin. isla saaseen dhex martay ayuuna ku geeriyooday. meydka xaaskiisii hore iyo isagaba hal meel ayaa loo wada qaaday. waxaase runtii arrintan ay abuurtay cabsi aad u weyn oo dadka walaweyn ku nool soo wajahday, oo ay ku muujinayaan in weligood aanay arkin dhacdo noocan oo kale u qaabdaran. waxay sheegeen in xilligan la joogo kala shaki weyn u imaan karo xagga qoysaska wada nool, maadaama ay sheegeen in dhacdo noocan oo kale suuragal aysan hore u ahaan jirin deegaanada dadka reer walaweyn ay degan yihiin. booliiska oo aan la xirin waxay noo sheegeen inaanay faahfaahin hadda ka bixin karin, balse goobjoogayaashii aan la hadalna waxay noo xaqiijiyeen ninka oo wejiga duubtay cimaamad wax ay ku soo xirtay inuu gabadhan oo guriga iska joogta u soo galay asagoo qori wata, kadibna meesha ku dilay. ilmaha ayay wariyeen dadka qaar inay guriga la joogeen, 4 caruur ayay u dhashay gabadhan. gabadha qoyskeeda qaar oo nala hadlay waxay noo sheegeen in gabadha iyo ninka horay khilaaf uu u jiray, taasoo sababtay inay kala tagaan, laakiin kala tagoodii kadib gabadha wax mustaqbal kale ah maysan samaysan, micnaha lama guursanin. xataa haddii loo sababeyn lahaa falkan dhacay wuxuu daba joogaa ninkan hinaaso uu ka qaaday gabadha oo nin kala guursatay. waxaa la xaqiijiyay inaanay nin guursan gabadha, balse qaatilka ayaa wixii laga ogaan lahaa dhankiisa ay halkaa kusoo afjarmeen markii falka uu geystay kadib, maadaama isagiina la dilay. booliisku waxay kaloo sheegeen kiiska in loo soo gudbin doono magaalada caasimadda ee muqdisho, gaar ahaan waaxda dambi baarista ama laanta dambi baarista ee dalka CID-da la yiraahdo, si bal arrintan diiwaan dheer looga sameeyo. laakiin labada marxuum ee ifka ka tagay waa dilaaga oo markii dambe la dili doono iyo gabadha miskiinta ahayd oo lagu gardaroodayba ilmihii ay isku dhaleen waxay soo taagan yihiin meel cidla ah. 4 caruura, hooyana ma haystaan, aabbana ma haystaan. aabbahood wuxuu dilay hooyadood, halka aabbahood oo isdifaacayana ciidanka booliiska ay toogteen. arrimaha noocan oo kale ah runtii ama nin inuu qori u qaato xaaskiisa dilo afka kuma badnayn beryahan dambe. waxaa badnaa falalka kaleeto ee dhaca oo ah in nin naagtiisa uu gubo ama midi iyo waxyaabaha isku adeegsadaan oo sidaa ay nafta uga qaadaan, laakiin hadda xabad baas ayay maraysaa.